oo wax garada ama siyaasadda la socdo ama dastuurka dalka akhriyaa wuxuu og yahay in ay sharci darro weyn ay ahayd in muwaadin Sheekh Shariif markii laga soo qaado muwaadin Soomaaliyeed dastuurka ayaa qodobkiisa 12 xaq u siinaya dalka meesha uu rabo inuu ka tagi karo taas waxa uu dheer asaga inuu madaxweyne hore ahaa oo weyn yahay sharaf iyo karaamo gooni ah oo siinaysa inuu madaxweyne hore ahaa marka laakiin ficilka iyo waxa xadgudubka lagu sameeyay Sheekh Shariif waa wax soo socday sanadihii la soo dhaafo dhan oo nidaamka hadda jira ee madaxweynaha u yahay madaxweyne Farmaajo ay ku soo kacayeen oo ku saabsan xagga xorriyadka iyo xuquuqul insaanka iyo ixtiraamka sharciga iyo dastuurkaba aan wax haba yaraatee loo aabiyeelaynin oo wax ixtiraam aan loo haynin waad ogtahay weeraro ay anaga nagu soo qaadeen oo dad ku dileen ay jiray inay hor istaageen fadhiyadii iyo seminaaradii iyo xaflad iyo barnaamijtii dadka xisbiyada siyaasiyiinta hogaamiyaashooda ay sameeysan lahayn hor istaageen baarlamaankii Soomaaliyeed hay'adii dastuuriga ahayd ee macnaha u yeelahayd la xisaabtanka iyo iska weydiinta dawladda waxa laga dhigay mid aan shaqeynaynin oo la ciladeeyay oo gabi ahaan iska istaagay labadiisa aqal waxaana daliil u ah crisis-ka ama azmada intaas la eego dalka maanta ka taagan labadii baarlamaan labadii aqal lama hayo gudoonkoodii lama hayo wax ay ka sheegayaan ma laha waxaan maqlaynaa un kaliya xukuumadda hadashay sidii dalkii inuu yahay dal ay laanta fulinta kaliya ay taladiisa ay leedahay oo kale marka waxaan waa wax soo socday annagana xil horan digideeda bilownay dad badan kuma aysan qanacsanayn laakiin hadda waxa la soo gaaraan filaya inay qof walba gurigiisa ama hoygiisa ama meesha uu joogo ay ugu tagtay waxaan filayaa in arinta lagu sameeyay xanibaada Sheekh Shariif iyo xadgudubka lagu kacayna taas ay qayb ka tahay waliba inay madaxweynihii kale oo safraya ay subaxaas soo soo galaan garoonka diyaarada oo midna dhoofo amarna oo ku bixiyo madaxweyne asaga marna prime minister ka dhigay marna xilka ugu horeeyay in la xanibo hadda way garashada intay la egtahay dadka xilka haya ay ka turjumaysaa iyo ixtiraamka ay u hayaan dastuurka intuu la egyahay intaba iyo sharciga iyo kala dambeynta dawladnimada intay u hayaan iyo xataa inay fahmaan waaqaca siyaasadeed maanta Soomaaliya lagu shaqeynay fahamka ay ka qabaan intuu la egyahay ay tusaale u tahay arintaas markay dhacday Shariif Sheekh Axmed waxa kulamo la qaatay siyaasiyiin badan oo hoygiisa ku booqday adii la turkaa markii aad ku soo laabatay magaalada Muqdisho qayb ayaa ka ahayd madaxweynihii ka horreeyay Farmaajo Xasan Sheekh Maxamed sidoo kale qayb ayuu ka ahaa kulamadaas kadib Sheekh Shariif waxa uu goostay inuu shir jiraayid qabto shirkaas jiraayidna waxa ka muuqda hadaladiisa cara aad u xoogan hanjabaad kululna hawada waxa uu mariyay madaxda ugu sarreeyay dowladda federaalka ee Soomaaliya arintan haddii aan la xalin maxaad is leedahay intee ku dambeynaysaa runtii waa arin halisteeda iska leh waxaana fahamsanahay oo maqlaya qolada talada haysa xukuumadda inay iska yareysanayaanba oo ay leeyihiin dadkii hore oo iska hadlayay buu la mid yahay muxuu dhaamaa hadalka aan ka maqlayno waa taas laakiin aniga waxaan is leeyahay Sheekh Shariif madaxweynihii hore iyo madaxweynaha Xasan Sheekh iyo xisbiga wadajir aniga aan hogaankiisa ay iyo xisbiga Ilays oo hogaamiyo xildhibaan Cusable iyo xisbiyo kale oo badan talooyin ayaa u socda sida ugu haboon ee tilaab looga qaadi karo arimahaas ma aha kaliya wixii ku dhacay Sheekh Shariif inkastoo xurmad darriya xadgudub ay ahaayeen laakiin sideedaba dhaqanka dawladdan ay la soo baxday oo xadgudubka ah oo dastuurka sharciga aan la ixtiraamaynin oo deegaan iyo dadnimo aan la qadarinaynin oo qof ka horeeyay xil iyo qof ka dambeeyay aan ixtiraam loo haynin oo la rabo dalkan in dictatoriyad aan ka suuroob gelaynin basidiisaba oo waaqaca hadda soo u yaalaba u saamaxaynin in laga hirgeliyo la rabo in laga hortago talooyin aan ka leenahay insha Allah maraan dheereen dadka waan la wadaagi doonaa shacabka Soomaaliyeed iyo dadka siyaasadda daneeya talooyin xoog leh runtii dadka stakeholders ama saamiliyada siyaasadeed yiraahdo hadii la af Soomaaliyeed eragaas u socda waana soo bandhigi doonaa mana doonayno qof wax ku dhacay kaligiis inuu ka jawaabo arinta inay noqoto laakiin wax ku dhacay dadka Soomaaliyeed iyo xadgudub ku dhacay qaranka Soomaaliyeed iyo dastuurka Soomaaliyeed ayaa u wada aragnaa anaga dhan guud ahaan xisbiyadiina ka dhammaanteedba taasaana rabnaa inaan tilaabada si wadara aan ku wada qaadno ma rabno qof kaligiis wax lagu sameeyo ka jawaabaya arinta inay waka halka asaga kaligiis already shir jiraayid uu qabtay idinka goormaad hadlaysaan oo arintan aad ka hadlaysaan ma markay faraha ka baxdo mase hadda intay wax ka qabashada talooyinkooda way socdaan dawladda hada waan la heli doonaa jawaabteeda arimaha noocan oo kala markay yimaadaan waa arimo dastuuriya qofka xorriyad inuu leeyahay inuu bixi karo u socdaali karo dastuurkan qof basi ayuu dhigtaa waana qabi qoraal wali ma dhamaystirna yaa looga baahan yahay arimahan in soo fargeliyaan aqalka sare ma golaha baarlamaanka mise golaha garsoorka oo wali aan si xoog loo dhisay intaba way leeyihiin markii madaxweynaha dastuurka oo ku tunto horta in la ogaado waay madaxweynaha hadduu qodob dastuuri jabiyo waa khiyaano qaran
صح ay ku qoran tahay dastuurka naftiisa ku qoran tahay madaxweynaha dastuurka ku xadgudba sababtoo amarka asaa bixiyay dastuurka lagu xadgudbayo dastuurka markii lagu xadgudbo marka baarlamaanka waxa u furan inuu dawladda kula xisaabtamo xadgudubka dastuurka ah meeshana xadgudub dastuur kaliya ma oolin xadgudub xuquuqul insaan ayaa li oo qof shakhsi ah xorriyadiisa dhaqdhaqaaqa lagu xadgudbay ko dowlad goboleed dhan xanibaad la saaray ilaa dadka isbitaaladii ay ku dhibtoodaan oo ku dhintaan oo dhibaato kasoo gaarto la saaray waa arrin humanitarian xataa nafteeda oo xuquuq insaanka la xiriirta baarlamaanka marka waxaa laga rabay inuu xukuumaddan kala hadlaysa iyada oo subaxna saadaasha hawada ay leedahay anagu ma xayirin qofna subaxna wasiiradeeda ay leeyihiin anaga xayiraadii qaadnay baarlamaankii la xisaabtami lahaa shaqada sabta baarlamaanka laga rabaa labo sheekh shariif oo kale haddii maanta dalka dastuur iyo garsoor uu ka shaqeynayo waxay ahayd inuu maxkamadda ka dacweeyo ciddii xadgudubkaas ay samaysay laakiin waxaan ognahay garsoor shaqeeya hadda oo maxkamado oo madax bannaan oo nidaamka hadda jira ka madax bannaan inuusan jirin sababtana waxaa keen asaas soo magacaabay sida saxdaa waxay ahayd inay guddiga garsoorka ay proposalkii magacaabistii iyo processkii hanaanka lagu magacaabayo garsoorka ay leeyihiin oo qofka garsoorka joogaa u sarreeya oo ogyahay inuu isaga madax bannaan yahay u baahnayn xukuumadda iyo madaxweynaha inay magacaabaan xil ka qaadaan ama aysan ka qaadin qof madax bannaan madax bannaanadii maadaama aysan jirin ku eedi mayno qofkii shaqadiisii ayuu ilaashanaya marka garsoorkuna kaalinuu leeyahay aqalka sare kaalinuu leeyahay sababtoo ah waxa dhibaatada ay ka dhacda oo criisiska uu ka taagan yahay waa dowlad goboleedana waxaa ku matala hanaanka federaalka waxaa ku matala waa aqalka sare marka inay ka aamusaan waxa dhacaya xadgudub lagu sameeyey muwaadin soomaali iyo madaxweyne hore ay ka aamusan yihiin waxba ka soo saarin xataa runtii waxay ku tusinaysaa meesha ay joogaan golayaasha cidijinta iyo mustawaha ay marayaan ayay ku tusinaysaa dalkaana meesha uu kusii hoobanaya intay la eg tahay iyo tusaale ka tahay marka waxaan dhihi karnaa wixii lagula kacay sheekh shariif waxay banaanka soo dhigeen iyo wax horoo badan oo hore u dhacayba inta aruureen hal mar banaanka waxay soo dhigeen foolxumada iyo kartixumada hay-adaha dastuuriga iyo foolxumada hogaanka dalkan ka jira ixtiraam la-aan dastuurka u qabo iyo hal mar uun banaanka soo dhigeen golaha garsoorka waa meesha ugu dambeysa lagu kala baxo markii laisqabto arrimo siyaasadeed ama arrimo sharciyan ah oo dastuurka quseeya xukuumaddan hadda jirta iyo xukuumadihii ka horreeyeyba kulligood waa ka gaabiyaan inay si xoogan u dhisaan golahaas maxaa u sababa waxaa u sababa dee in waxaan isleeyahay dee maba waa ujeedka aanba ku jirinba in garsoorka la madax baneeyo si uusan u qabanin gacanta madaxda sababtoo maanta muwaadin kasta ee soomaaliyeed wuxuu xaq u lahaa inuu wax la yidhahdo injection ka dalbado maxkamadda sare oo ah go-aanka dowladda ay kasoo saartay ay ku joojisay in diyaaradaha u socdaali karaan si toos ah ama si dadba magaalada kismaayo markii dambena way wada joojiyeenba muwaadin kastoo soomaaliyeeda xaq u leh inuu maxkamadda sare dacwo ka faylgareeyo yidhaahdo arrintan waa arrin qalada maxkamaddan ay ka jawaabdo waxa marka maxkamadda aadaya male sababto waxaa la ogyahay maxkamaddu inaysan madax banaanayn marka waa ayaan daro dadka madaxda ay ka shaqeeyaan inay garsoorka ayaga hoos joogo hadda waxaa lagu faanaa baarlamaanka waan kala dirnay baarlamaankii annagaa haysano baarlamaanka goorma u dambeysay oo laleeyahay mooshin la keeno goorma u dambeysay sidii mooshinka inuu dembi yahayba dadka soomaaliyed waxaa maqlaya madaxweynuhu meel kale mooshinadii aan lacag ka dhiganayaan aan maaragtay aan safaarad ku gadnay asagoo leh madaxweynaha saas laho mooshinaan lacag ka dhignay safaaradan gadna leh guddigii doorashada ee madaxa banaanaa wuxuu degan yahay madaxtooyada dhexdeeda wuxuu ku jiraa container yar oo UN u dhiseen oo jingada ah kaalay war dowladdii waxaa laga kelahay kaalay guddiga meel u dhisa oo meel haddago oo doorashadii iyo shaqadiisa ha qabtaa laga keri layahay marka dowlad noocaas ayadana u fikiraysa waayo waxa meesha jooga waa garta cunaqabateynta la saaray dhanka duulimaadka ah ee Jubbaland ayada laftirkeeda horta ma si sharci ay ku imaadeen mise waa sharci darro oo waayo maamul goboleed ka tirsan dowladda federaalka waaye muxuu ahaa Jubbaland hadda waxay sheegtay dowladda inay ka qaaday cunaqabateyntiis laga qaadama marka mid siyaasiyiintii iyo dadkii dhammaa ahaa mise waa mid shacabka oo keliya ah fiiri sideeda waa ina ogaanaa saadaasha hawada waxay ka mid tahay waxyaalaha sovereignty-ga la yidhaahdo ama siyaadada waxaan la yidhahdaa dalka soomaaliya uu leeyahay ka mid tahay badda xuduudaha badda beriga iyo hawada intaba waxaan ognahay dowladda soomaaliya awood umale intaba inay kontrolsho oo hadda ciidan ajnabiga dhowr dal ka socda dalkeena joogo oo xuduudaheena dhanba ayaga hadda kontrolo haya hawadeena awrana gacanta nooguma jirno United Nations ayaa hayay badeennana ciidamo European Union ka socda oo NATO ka socda ilaali jiray intaba si tartiibaha dowladda waxaa gacanta loogu soo celiyay midda hawada maadaama ayaday u sahlan tahay ay u baahan tahay sharci iyo wax yar sahlan ay tahay u baahnayn ciidan lagu ilaaliyo aysan u baahnayn
maamul goboleedyadii dalka ka jiray iyo xataa somalilan intaba waxaa lagala soo negoshiyad gareeyey wakti badan lagala soo wada hadlay oo wadahadal lagala soo galay in hal mar uun awoodda loo soo celiyo dowladda federaalka marka waxaa lagu keenay waa inaa ogaanaa siyaadada iyo awoodda dowladda leedahay inay hawadeeda maamusho waa waxa lagu keenay soo tuug negotiation iyo baryo lagu tijaabiyey in wax uun siyaadaha dowladda gacanta loo geliyo markii loo geliyana waxay dowladdii ay tusaale u noqotay sida haddii xataa soomaali awood dowladeed ogolaato sida loo dhaqmayo tusaale u noqoto runtii oo ku takrifal ah oo qofaad siyaasad isku haysaan inaad u isticmaasho dowlimaadka haddii maxamed farmaajo ou rabo inuusan sheekh shariif maalan kismaayo aadin ama cabdiraxmaan cabdishakuur aadin waxa keliya u furo waxaa inuu la fadhiisto oo ka qalqaashado oo ku qanciyo meesha wax ka jiraan sax ahayn oo ka baaqdo laakiin waa ku isbaaraysanaya isbaaran kuu dhiganaya waxay tusaale u tahay waxayna sii fogeynaysaa kalsoonida ay soomaalidu ku qabi karaan inay dowlad aaminaan gacanta awood loo geliyo isay u dhaqmaysa ay fogey kartaa hadda hadday leeyihiin siyaasiyiin ma aadi karto waa u joognaa dabcan dadka lagu casuumay meesha way tegi doonaan hadday diyaaradaha keliya fasaxeen iyo hadday siyaasiyiin joojiyeen meesha waxa ka dhaco markii la wada aado ama dib loo qabto munaasabadii ama la aado yaa la arki doonaa laakiin warka aan maqlay anigu go-aan kuma gaareye maalinta anigu inaan safro ee laboorka layga soo celiyo ama garoonka layga soo celiyo la yihahdo adigu masafika sababtoo siyaasi halkaas u socdaa tahay markaasaan arki doonaa say xaalka u noqonayo waa gartay adigoo socda haddii lagaa celiyo oo lagu yihahdo ma baxaysid maxaa samaynaysaa dabcan aniga keligay maaha hadda waxaan rabnaa talo ay dadka siyaasiyiinta ah wadankan jooga ay wada leeyihiin in go-aan lagu gaaro waan ognahay dowladda hadda jirta ee hogaamiyo madaxweyne farmaajo iyo xukuumadda khayra madaxda ka yahay waxa ay ka shaqaynayaan waxaa waaye inay dadka derbiga ku geeyaan oo ayna geeyaan meel lagu wada ceeboobo oo maaragtay maadaama ayaga ay dheeqaysan yihiin ceeb ku jiraan dadka intooda kale inay ceeboobaan waxa dowladnimada soomaaliya dumayna saas ee derbigaa la isku geeyey dadka waxaa laga xiray isbeyskii xorriyadda waxaa loo diiday dhaqaaqii siyaasadeed waxaa loo diiday afkaartooda siyaasad inay cabiraan waxaa lagu cadaadiyey hantidoodii iyo dhaqaalahoodii in lagu cadaadiyey timid ilaa dadkii markii dambe sidii burkaankii inay qarxaan annagu waxaan rabnaa in ayagana aan lala ceeboobin dalka waxa lana badbaadiyo dalka intiisa kale iyo maadaama caasimadda ay tahay xaruntii dalka in la badbaadiyo laakiin waxa ayaga ay ka shaqaynayaan waxay ajnabiga u sheegaan hadda nimanka dulmiga intaas la eg sameeyey yaa se wax walba ajnabiga u kala dacwoodan ognahay annaga shalay aniga dad safiiro kamidaan arkay ay leeyihiin nimankii way is aruursanayaan qabiilay isku aruursanayaan ciidamay furmo kasoo bixinayaan dagaal bay qaadayaan waa ayagii waxaa maqli jira carab intay ku nabtay nebiga kaaga hormartaa ayagii sida ficilka xun ku dhaqaaqay yaa dadkii haddana aad iyo dacwo ka horgeynay annaga ma rabno hadda wadankan in qabiil iyo deegaan hadda mar kale la isku dagaal laakiin farmaajo wuxuu ka shaqaynaya haddaa rabto natiijadeedu waa taas laakiin annagay tahay inaan ka ilbaxsanaano ka roonaano markay hoos u degaan gabadhii uu qabi jiray obama waxaa laga sheegay markay hoos u degaan annaga inaan kor u baxno waay marka haddii ayaga hoos inay u degaan rabaan annaga kulley dadka hoos ula degaaya ma nihin kor inaan uga baxnaan rabnaa sharafteeni karaamadeena inaan ilaashana waa rabnaa dalkan inaan badbaadino waa rabnaa dad daciifiyiin oo laysaga xadgudbaayo maalin kasta oonan deegaan iyo taageero iyo dad lahayn in u muuqanana ma rabno saddexdoo la isku xeeriyo runtii waa waxa keenaya in talada ay aada u badato waa garta markaad xisbiyadiina wada hadashaan kolley baarlamaanaa jira awooddu raba ha yeesho laakiin baarlamaankaas jira wuxuu ka horeeyey xukuumadda hadda jirta oo asagaa soo dhisay madaxweyne ra-iisul wasaare kulli baarlamaankana sidaan la socono kulligood wuxuu ka yimid dadka hadda xisbiyada ama xisbiga u b d ama xisbiga daljir ama xisbiga wadajir kulli xisbiyadiina dadka baarlamaanka aad ku leedihiin inaad arintaas inta kala hadashaan oo si baarlamaaniya aad wax ku xeerisaan oo si sharciga lagu kala waxsoomo wanaagsan baarlamaanka sidiisaba xisbiyadu afraad iyo dad shakhsiyaada waa ku leeyihiin oo xubno waa uga jiraan sax waaye qaybkaasna ugu socda xildhibaanada way hadleen guddoonkana way u tageen baarlamaanka in la furo arrimaha laga horena way ka codsadeen laakiin sideedaba waxaa jira waxay tahay guddoonka baarlamaanka awoodda baarlamaanka in la furiyo in la xiro in arrimaha lasoo bandhiga in laga hadlo mas-uuliyad asaga saaran waaye xataa banaanka baarlamaanka oo furnay hadda baarlamaanka kalfadhi ma jiro oon furnayn xataa in laga hadlo mas-uuliyad asaga saaran waaye wax xildhibaanada saaran maaha ayaan daradaa waxay tahay war guddoonkii baarlamaanka aaway oo dalka waxaan ka socda intuu jiraa mararka qaarkood madaxweynaha waa maqan yahay hadda guddoomiyaha baarlamaanka saa kusimaha madaxweynaha ah war muxuu xaguu jiraa aawa kaalintiisii siyaasadeed mustaqbalkiisu hal mid ha ogaadaan guddoonka baarlamaanka labada dhinacba mustaqbalku siyaasadeed beri dadka siyaasadda way isbedelaysaa kuwa hadda jooga talada ma hay doonaan waxa ay raadaynayaan ay qorayaan waa mustaqbalkooda siyaasadeed
waa ayaan daro dalkan haysata inuusan hay-adihii loogu talagalay ee dastuuriga ahaa inaysan xisaabtamaynin waxa keenana waxaa waaye baarlamaankii ayaa kala qaybin iyo kala laaluush iyo kala tegid iyo waxay dowladda ka shaqaysa waaye laakiin haddii la diido marka duruqda sharciga ee dastuuriga ee dalka leeyahay haddii hay-adaday shaqey waayaan kuwo kale un baa shaqaynaya taas inay ogaadaan waayo taasaa ka maqan ayaga haddii dariiqa dastuurigaa soco waayo oo sharciga shaqey waayo oo dastuurka shaqey waayo ku kale un baa shaqaynaya un sidan arint waaba sunnada kownigaaba sunnada qaanuunka dabiicigaa sida iska ah maba ahaa kartaba saan wax kale un baa annagana waxaan leenahay war kuwaan ha shaqeeyaan intii option kale ama khiyaar kale oo kan ka foolxun ama aan ka qaab dar la aadi laha kan ha shaqeeyo laakiin annaga dad un waxaan nahay dastuurka iyo sharciga daba taagan haddii dastuurka iyo sharciga la shaqaysii waayo oo ayaga la ixtiraami waayo hadda mas-uuliyaddeeda kuwii ku tuntaa qaadayo iyo wixii ka yimaada laakiin waxaan sheegaynaa un sunnada kowniga ama qaanuuni dabiiciga wuxuu sheegayaa inay wuxuusaan iska ahaanaynin waa gartay madaxweynaha dowladda federaalka ee soomaaliya maxamed cabdullahi farmaajo dhowaan waxa uu saxiixay sharci ama hindisi sharciyeed ku saabsan musuq maasuqa oo loo soo gudbiyey 2017 maxaa ku soo beegay inuu xilligan saxiixo sharci xilligaas loo runtii ani ma garan karo waa uun dad badan oo fasiraya un baan arkay laakiin ilaa hadda anigu ma garan natiijadeeda laakiin fiiri dowladdu waxay diiday hanti dhowrka guud in la madax banneeyo ma madax bannaana sharciga baarlamaanka ansixiyey hanti dhowrka guud inuu madax bannaanaado oo xukuumadda ka madax bannaanaado madaxweynaha sharcigaas inuu saxiixo waa diiday waa soo celiyey xukuumadda ku soo celiyey xukuumadda way soo tacdiilisay ama way soo amangaraysay waxay ka dhigtay in hanti dhowrka xukuumadda la hoosgeeyo hanti dhowrkii ma madax bannaana xisaabiyaha guud ma madax banaana awood maxkamadda garsoorka ma madax banaana oo maanta ciday rabaan arrin musuq maasuq kuma maxkamaday karaan waan ognahayoo baarlamaankii laaluush yaa lagu kala wadaa oo sharcigaas in madax baneeyo hanti dhowrka oo baarlamaanka la hoosgeeyo sida adduunka dimuqraadiga isla xisaabtan ka jiro uu yahay baarlamaanka naftiisa laga ansixiyey inta loo qeybiyey maaragtay laaluush iyo wax lamida waxaa la ansixiyey maalintii la ansixinaya qof ajnabi inuu bangiga dhexe qaban karo isla maalintaas dadku uma baraarugsan isla maalintaas la ansixiyey hanti dhowrka in la madax banaynin marka meelaha hanti dhowr madax banaaneen oo xisaamiye guud madax banaaneen oo hay-adaha oo baarlamaankii hadda xisaab celin maaliyad hadda ilaa hadda lama sameynin sanadkii 2018 baarlamaanka xisaab looma celinin oo markii la yidhaha 40 milyan la lunsaday guddigii ay dhaheen baarlamaanka qaabilsanaa la kala diraba guddigii oo la baabiyo guddi cusub dib loo dhisay haddii qof yimaado yidhaahdo musuq maasuq waan la dagaalaya waa iska joog oo guddoomiye baarlamaanka laaluush lagu riday oo xildhibaano inta idaacadaha warsadeen dheh $5,000 ayaa naloo keeno waan diidnay qaarna waan qaadan ay leeyihiin haddii musuq maasuqa lala dagaalaya iyo qaabkuu yahay waa iska cayaar iyo waxaan u haystaa un inuu yahay masaajidka cayaarta ka dhaafaan leenaha madaxweyne meeshaa musuq maasuq lala dagaalama yaal waxaa gebi ahaanba hakad uu ku yimid kalfadhiyadii baarlamaanka ama fadhiyadii baarlamaanka maxaa u sababa isleedahay baarlamaanka waa la tacdiiliyey waa la awood tiray waa la howlgabsiiyey baarlamaanka waxaana ka mas-uula guddoonkiisa waxaa loo howlgabsiiyey horta guddoonkiyaa lala wareegay totally oo laga dhigay guddoon xukuumadda hoostaga oo ajadayaasha baarlamaanka xukuumadda laga keeno xilliga la furaayo xilliga la xiraayo waxaa laga hadlayo waxaan laga hadlaynin waxay noqday sababta guddoomiye jawaari loo tuurana saasay ahayd anugu dadkii aad u difaacan kamid aha in la tuuro guddoomiye jawaari waxa loo tuurayana waxay ahayd baarlamaanka in laga adeegto oo baarlamaan laga shaqaysto ou noqdo oo baarlamaan macnihi aanan hawshii dastuuriga aan gudanin ou noqdo waa la soconaa laaluusha lagu qarqiyaa baarlamaanka xildhibaano badanba sida la sheegayo oon xogna aan ku haynaba dee sheegid keliya maahane mishaaraba uga qoranba xafiiska ra-iisul wasaaraha oo ay mishaar ka qaataanba marka fiiri meeshaan waxaa jira waxay tahay baarlamaankii waa la awood tiri waa la howlgabsiiyey baarlamaankii guddoonkiisii totally waa lala wareegay gacantaa lagu hayaa oo xukuumadda gacanta ku hayso waa kala garala'nahay baarlamaanka iyo xukuumadda hadda waa la kala garala'yahay ajandayaasha xukuumaddaas hoos adgaraysa marka baarlamaanka waa loogu tala in la howlgabo laakiin natiijada ka dhalan kartaa maxay tahay allan baarlamaanku wuxuu ahaa meesha dadka siyaasiyiinta kala aragtida duwan ay ku cabiraan ra'yigooda dastuuriga ay awood ahaan ugu mumaarasayaan oo ahay haddii asaga la awood tiro dadku waa inay helaan marka venue kale iyo meel kale ee awoodooda siyaasadeed ay ku mumaarasayaan ama ay ku dhaqangeliyaan in la helo waayo taasaana diidana anaga inay noqoto wax ka baxsan hay-adaha dastuuriga waxaa soo noqnoqda khilaafka udhexeeya qaar ka mid ah maamul goboleedyada iyo dowladda federaalka ee soomaaliya khilaafkaas wax badan ayuu soo jiray xukuumadihii hore iyo xukuumadda talada haysiintaba muxuu salka ku hayaa waa su-aal fiican fiir wuxuu salka ku hayaa nidaam federaal oo dalkan uu qaatay dastuurkiisa lagu qoray dadku soomaaliyeed ee shacabka ah
markii dastuurka la dhamaystiro unbaa loo gudbi doonaa sida social contract runa u noqdo laakiin dadkii siyaasiyiinta ku heshiiyey ilaa haddeertaan inuu wadanku noqdo nidaam dastuuri ah fikradda ka dhalatana waxay ahayd war waaba la kala qoqoban yahay dadkan kala maqan ma awooda la iskugu keeni karaa oo dowlad dhexe inta la sameeyo duusho ay gobolada qabsato iyada ka arrimiso ma la yeeli karaa dhowr iyo 10 sano lagu fashilmo waa la yeeli waayo dowladdii carte laga soo dhisay ilaa iyo hadda la soo gaaray dowlad inta baxda awood siyaasadeed gobolada ku maquunin kartaa isku keeni kartaa waa la waayay goboladii waa entity madax bannaan oo joogo taagan see la isugu imaan karaa in wax la isku darsa see la iskugu darsan karaa hanaanka federaalka ah oo awoodda la dejiyaa la iskugu darsan karaa waxa keenaa marka waxay tahay oo khilaafkaas mar kasta keena sidiisaba asaaskiisa qofka la doortay talada xamar taalo loo doortay muqdisho taalo wuxuu isku maleeyaa sidiisaba inay dowlad shaqaynayso oo madaxweyne u yahay waxa loo dhiibani waxaa waaye dowlad in la dhiso soomaaliya adduunku wuxuu u yaqaanaa wadan ku jira state building dhismaha dowladu ku jira soomaaliya dhisma dowlad gurigan marka hadda dhamays ooyo annaga aan dhex degannahay adi aan dhex joogno oon ku nool nahay na waa mid markii uu gurigan yahay guri qabyaa oo in la qabyo tiro dhisan rabo oo dhismihii beyska keliya dhisan yahay daaqadihii iyo maraayadihii iyo dariishadihii iyo wixii dhan ay ka maqan yihiin oo guriga qabyo oo yahay waa kala labo haddaa marka tiraahdo guri qabyaa oo dhammaystirnayn oo la degi karin waa degaya aniga haddaa dhahdo waad qaldan tahay ma degi kartid guriga waa inuu dhammaystirmaa soomaaliya qofka madaxda ka noqonaya state building dowlad dhisidaa laga rabaa oo dib heshiisiinaa laga rabaa oo dastuur dhammaystiraa laga rabaa oo ciidan dhisidaa laga rabaa oo xuduudaha soomaaliya linteesii loo ilaala laga rabaa oo dadka iyo dalka sidii laisugu keeni lahaa laga rabaa laakiin haddaa usoo degto sidii nin wixii dhan u dhamaystirin oo dowladnimada haysta inaad tahay meesha horta mafhuumka qaladka aragtida qaladka ay ka jirto horta waa halkaas kow labo nidaam waxaa yimidba haddeertaan dalkii aan federaalki ogolayn korna u sheegi maayaan laakiin ficilkooda federaal kasoo horjeedaan oo waxay ku leeyihiin maamul goboleedyada hadda qaarkood waa gubernatoriyaal annagaa xukuno saasaan rabnaa saas sidii lagu heshiiye maaha dadku inay gubernatoriyaal noqdaan adna aad madaxweyne u noqoto soomaali badan oo jecel inay jirto waa laga yaabaa laakiin sidii lagu heshiiye maaha waa lasoo tijaabiyey iyadoo anigu hiiraan kusoo koran ku dhashay gobernatoraha hiiraan iyo guddoomiyaha degmada waxaa laga soo magacaabi jiray muqdisho weliba madaxweynaha magacaabi jiray jamhuuriyadda soomaaliya marka saas qofkii rabee ku tami taas waa laga soo lama jooga hadda waxaa la joogaa inay maamul goboleed ayagu isdoortaan golayaashooda deegaanka iyo kuwooda baarlamaanka iyo madaxdooda ayaga ay samaystaan adiga inay kaa amar qaataan oo amar aa ka qaadatid maahane waa inaa ku heshiisaan waxa adiga awood u leedahay iyo waxa ayaga awood u le in lagu heshiiye waayo marka nidaamka hadda jiraa waxa xumeeyey xiriirku aad u xumeeyey waxay tahay wuxuu aaminsan yahay asaga inuu maamul goboleedyada xukumo oo wasaaradda arrimaha gudahay rabaan inay doorashooyinka qabato maamul goboleedyada ayada inay amarka soo saarto oo maamul goboleedyadana ay wasaaradda arrimaha gudaha hoos tagaan dadkaana ay gubernatoriyaal yihiin amalay u haystaan nimankaa talada joogo laakiin waa miday ku qaldan yihin ku lunsan yihiin taasna waxay keentay marka in hadda federaalkii xataa dadka qaar ay dhahaan dibaan uga fakeraynaa oo waada maqlaysa puntland ayadoo le dad siyaasiyiina inkastoosan maamulka ahayn confederaal inaan laga fakeraan aan diyaar unahay dhahayaan federaalkiiba hadda dadki inay ka shakiyeenoo waxaana keenaya qofkii awood dowladda dhexe la siiyaaba inuu wixii dhan qaato inuu isku dayo inay dadkii shaki keenaan maxaa diidaya maanta haddii axmed madoobe iyo maamulka jubbaland cooqabataynta lagu sii wado oo sida la yeela yidhaahdo inay yidhaha soomaaliya waa ka baxnay wax diidi kara ma jiro ma jiraan maxay dowladda soomaliya samaynaysaa maxay samayn kartaa waxba ma samayn karto ciidan etoobiyana may soo baraysaa kismaayo ku qabsanaysaa may kenyaanka jooga meeleeda noo qabo ma jirto waa ina ajnabigu barisaan wax kale ma haysid marka kala irdeynta dadka iyo kala fogeynta nidaamkan ayaa laakiin dowladda dhexe inay awood yeelato oo maamul goboleedyada awoodooda ay yaraato shacabka soomaaliyeed iyo weliba qayimka soomaalinimo dan ayaa ugu jirta maxaa diidaya fiir waa waxa soomaalida sida qaadkaa loo fahamsan yahaba inay maamul goboleedo awood yaraato lama rabo dowladdan awood badatee mid walba awooddiisa in la xadido unbaa la rabaa dastuurka ku taallaa qol walba awooday leedahay qolo walba in awooddeeda la xadidaa la rabaa awooddana waxaa la rabaa si sharci ah laakiin haddii madaxweynayaashii maamul goboleedyada ay isku haystaan inay la awood yihiin madaxweynihii dowladda dhexe ee federaalka ah iyadana soo dhib maaha in lagu soo qanciya rabtaa marka waa tan waxaan ku leeyahay dhismaha dowladda fiiri gurigan ku noqonaa mar kale mithaalkiisii ama analogigiisii haddaa adiga shamiitada meel ku haysato oo mid dhagaxii meel ku haysto oo mid ciiddii meel ku haysto oo mid fundigii meel ku haysto oo mid kastaba qalabkii oo guriga dhusaa meel ku haysto haddaa adiga cabdifataaxa booska aa leedahay dhulkaa leedahay aad tiraahdo dhulkii ina xoog ugu dhistiin aa rabaa ma soconaysaa waa inaad soo qancisaa oo tira walaalo shamiitada daa keento oo dhagaxa aa keento
oo ciidda aa keento oo fuudiga aa keento oo laamiyeeriga saqafka aa keento meeshaan guri aan wada degi karno oon ku wada manfici karno yaan rabaa inaan meeshaan ka dhiso laakiin aniga haddaan u arko shamiitada haysto guri inay u dhisato inaad rabtid hadhowdiina kaligaa aad degto waraa iiga bax guriga anaa iska leh anigu ma keenayo dee shamiitadii dhagax midna dadka marka waa waxa leeyahay the negotiation of statehood marka la leeyahay waxaa waaye negotiationka dadka waa in lasoo qanciyaa oo la yidhaahdaa haddaad dhagax keento shamiitada keento fuundeega annaga danaa noogu jirta dadka dantaas tusi ha ku qancaan in guri inta la dhiso la wada dego oo guriga qofba qol ka degan yahay oo ninka qolkan degan hadda xafiiska iyo qolka fadhiga ninka degan iyo qolka qadada ninka degan inay kala fadli badnayn waa inaad tustaa dadka shacabka soomaaliyeed waxay og yihiin in maamulada qaar ay doonayaan inay sidii dowladda dhexe ayaga inta baxaan heshiisi ay la soo galaan dalal kale haddii dowladda federaalka soomaaliya ay midaas hor istaagto ma waxay noqonaysaa in awoodahoodii laga hor imaaday mase waa sharci hadda ma hor istaaga hadday sameeyaan so hadda kama imaanin madaxweynaha puntland china dowladda maxay u celi weysa fiiri ma celin kartaa adiga su-aasha meesha taada waa maya ma celin kartid hadda waa baxayaan somaliland hadda inkastayba soomaaliya waa ka baxan ay dhaheen way tegeysaa haddii hadda uu baxo madaxweyne kale waa tegaya jubbaland hadda intuu tago axmedeed oo nairobi tago dowladda maxay ka celi kartaa fiiri dowladda waxay celi karta male tabar maba leba dowlad sideedaba waxa la fahamsiin ayaa wiilasha xog talada haya waxaa waaye waa dowlad tabar male saan kuu sheegay tusaalihii ku noqo tabarta si loo helo waa in qof walba wixiisa laisku soo daraa oo la yidhaahdo guri aan wada degnaan dhisaynaa nin walbana meeshaasuu ka degan yahay iyo qof walba qolkaasuu ka degan yahay waana wada anfacaya xeerkaana gurigaan ku wada joognaa oo haddaad qolka ugu qorxan degan tahay iyo ka fadhiga iyo ugu weyn degan tahay ka yar sharcigaana ku wada joognaa waxa aan ku jirno waa kugu celinaa renegotiation of statehood la yidhahdaa dowladnimada in la dhisaa negotiation looga jira negotiationna sidiisaba xoog laguma dayo waa garta nidaamkan federaalka in laisla fahmi la-yahay oo wacyigelin badan u baahan kula tahay of course waa u baahan yahay shaqada dowladda inay qabata laga rabo waayo way qabalaada waxay ku leeyahay dowlad xoog badan dhisaynaa maanta oo lagu haya war dowladdan xoog badan see u taallaa dowlad xoog badan annaga dowlad xoog badan waxaan u naqaanaa dowlad sharciga iyo dastuurka u hoggaansan dowlad xoog badan waxaan u naqaanaa dowladda britain oo markuu prime ministerka yiri baarlamaanka 2 wiig fasax aan geliyey xildhibaan inta baxay maxkamadda tageen maxkamaddii tirma geli kartid dowlad xoog kaasaan u naqaanaa dowlad xoog waxaan u naqaanaa inta Uhuru iyo Raila Odinga ku tartamay meesha la yiraahdo Kenya oo intaasoo milyan ka qayb gashay doorashadii oo intaasoo milyan oo dollar lagu bixiyay doorashadii maxkamadiisa ay tiri doorashada waxba kama jiraan lagu noqdo oo madaxweynaha aqbalay ana dowlad xoog leh waxaan u aqaanaa dowladda sharciga iyo dastuurka oo taliyo dowlad oo qof talinayo oo leeyahay ana xoog badan murqiisa banaanka soo dhigayo ee arkasaan qatar u ah wax aan dowladdu ma aqaano xoog badan dowladda ciif aan u aqaano oo uqdad ku jirto waa gartay khilaafka maamul goboleedyada waxaa baaq ka soo saaray dowladda qatar oo sheegtay inay ka shaqeynaysa sidii ay maamul goboleedyada dowladda federaalka soomaaliya u heshii lahaayeen baaqaas dowladda qatar ay soo saartay inay soomaalida inta wada hadli waayaan dowlad ajnabi ay soo dhex gasho sidii kula muuqda qatar soomaali inay wada hadli waayaan waxa keenay kow ka tahay lacagta lagu duminaya maamul goboleedyada bixisaa lacag kaashay dowladda federaalka siisaa ta baarlamaanka lagu aamusinayay bixisaa tan waxay bixisaa gobolada lagu duminaya bixisaa tan annaga mucaaradka maalin kasta idaacadaha iyo inta lagu kireystay iyo facebookyada iyo social media ay bixisaa dad waxaas ka shaqeeya soo tababartaa qadar hal waxaan ka rabnaa un adeeroo maalkan faasidkaa naga jooji keliya wax kale kama rabnaba baaqeedana ma rabno mana naqaano maalkan faasidkaa ee dalka ku wado ha naga joojiyo siday u timid xukuumaddan hadda talada haysa ee uu hogaamiyey madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo waxaa gebi ahaanba istaagay wadahadalkii u dhexeeyey somalilan iyo soomaaliya maxaa u sababaha isleedahay inuu wadahadalkaasi istaago maba jirtaba de somalilan sidiis ay dowlad siday nimankan talada u yimaadeen caqli darro yaroo waxay qabaan dalka gacanta ku wada dhiga haddaada ku dhigi karina awoodda yartahay dowladda leedaha isticmaala oo u isticmaala dadkan somalilan wax loo reebta male anuu dadkii ugu horreeya ka qayliyaan ahaa mucaawanada laga joojiyey oo layaha lasoo marsiiyey halkan oo qaab ka duwan mucaawanada loo sii jiray fitna dhexdeeda inta la abaabulay laga soo kiciyey oo dad dowlad kasta tageen deegaanahaas ay fidno ka soo kiciyeen waa labo wax kasta oo somalilan ay ku fogaa karto inay dhisato ganacsigeeda iyo maalgelinta somalilan in la hormariyo oo dhan ayaa laga hor istaagay waxaa ugu dambeeya haddeertaan qof human rights abuse loo haysto oo inuu ku xadgudbay dad muwaadiniin deegaankaas ka soo jeeda oo ku xadgudbay maxkamado maraykanka ka dacweeyeen yaa madaxweynihii isla sawiray oo soo garab istaagay oo xataa xafladii la maamulaya waxaan la yaaba waxay tahay anigu sawir baan isaga haystay waxaan hadda arkayba ninkii xafladii wax ka maamulaya marka dee somalilan maalin kasta waxaa la dhaawacayaa oo lasii fogeynaya
oo adeerow god lagu sii ridayaa wada hadalkii waa dowladdana kusii ridaysa taas keliya maaha war kuwii yaraayo hadda loo dhiibay kala diraysaaba somaliland aa ka hadlaysaa puntland hadda confederaal leh jubbaland hadda meel u cararto iyo baxsad ah intii yarada loo dhiibay yayba kala irdaynaysaaba baydhaba ogtaha wixii ka dhacay oo xasuuq ahaa oo intaasoo qofood ilaa 20 qofood lagu dilay gabar yaroo masaakiinahoo maalintii ka qaylaysa ilaa hadda xabsi ku jirta oo tiri waxaan anaga ma rabna keliya dhibkan oo hadda uu leeyahay midkii madaxweynaha meesha ka ahaa qof dowladda kasoo horjeeda meeshaan kuma shiri karto war waxaasoo dhan dowlad ku kacaysa somaliland hadda maba loo fadhiyo war intii yareeda federaalka goleeda loo dhiibay hadda laga la-yaaba wax ay dan kale yihiin nimada shacabka Soomaaliya u sheegaynaa nimankaas talada haya haddii xilligooda dhamaado ama way iska tagayaanba wax allaale waxay eel dhigeen danka ma laha oo dalkan ay sii kala fogeeyeen danka ma laha sidii la isku keeni karo Soomaaliya danka ma laha wixii dadkan ka soo galay oo dib u heshiisiin ah iyo process ah iyo kuwa isdilay iyo kuwa isdilinba oo meesha lagu soo yimidne danka ma laha horena dan uga ma lahayn marka taas ayaan darada jirtaan waa midaas oo ugu weyn meesha waxaa tahay siyaasi wax badan kala socda xaaladda ka jirta dalka maxaa is leedahay sidee lagu soo noolay karaa wadahadalka Somaliland iyo Soomaaliya sideese ugu habboon ee loola dhaqmi karaa Somaliland maadaama ay sheegatay goor isku taag waxa Somaliland ay ka cabanayso oo ay tabanayso in laga garaabo kow oo si rasmi ah looga garaabo labo in la dhiso kalsoonida saddex in Somaliland waxay ayada qabtana miiska soo saarto dowladda Soomaaliyeed ee federaalka waxay qabtana miiska saarto aan la soo gabanin aniga waxaan aaminsanahay haddii midnimo la rabane Hargeysa ay ka bilaabataa hadda anaga Muqdisho ama federaalka aan midnimada Somaliland iyo Soomaaliya aan rabnane Hargeysa ka bilaabataa oo in Hargeysa la qanciyaa Hargeysa hadday rabto inay naga go'do naga baxdane Muqdisho ka bilaabataa Muqdisho taala oo inay Muqdisho qanciyaan ayagana oo kaliya iskama tagi karaan si marka la isku qanciyo waa in wax kasta miiska la soo saaraa la wada hadlaa laba dhisaa kalsoonida labada dhinac ka dhaxaysa la dhisaa oo ficil kasta oo kala irdheynta keeni karaa aan lagu kicin sidaasoo kale maamulada dalka ka jiraan sidoo kale ee federaalka ogol dowladda federaalka waxa laga rabaa inaysan tusinin irdheynta nimanka qolada talada haysta nabadii nolol baxday maalin kasta waxay marka qaarkood waxay soo celiyaan xasan sheekh oo maamul goboleedyada la fadhiya madaxweynihii hore ay leeyihiin waa ka saamiiska dhinaca walba laga fadhiya ma talo haysta xasan sheekh realistic buu noqdo wax kale ma talo oo haysta maxay tahay xasan sheekh oo dalkan ku hayo oo tan sheegay waa in dadkan qoloba waxay haysataa oo ku soo qanciya isku keena laga rabaa on kaliya wax kale ma jiro kuwa wuxuu leeyahay ma waa kaas waa la kala dambeeya sawir waxaan arkay nimanka horta conceptiga dhana qaldanba wiilal yar oo ayaga taageersan oo social media ay ku soo daayaan yaa waxaan arkay madaxweynaha qolo wafdi markaas African Union ma daba socoto leeyahay kala dambeyn iyo dowladnimo soo noqon war kala dambeynta saf iyo maraasiim iyo protocol iyo meel la tagay iyo marka kursiga fadhiso madaxda maal goboleeda gees fadhiso adig kursi weyn dhexda dhigatay iyo waxaas kala dambeynta ma wax macnaheedu ku fadhiyaan male kala dambeynta waxa waaye dadku inay is ogolaadaan ay ku qancaan gurigan sheegay inay wada degaan cabdiraxmaan waxaa la sheegaa inaad siyaasiga ugu hadalka dheeraad tahay indhahaguna ay qabtaan wax walbo qaldan xukuumaddan ay samayso maxaa diida waxyaabaha wanaagsan ee xukuumaddan ay samayso marka qaarna ka hadasho fiiri sideedaba dastuurka qodobadiisa ugu horeeya ilaa 20 qodob ugu horeeyay wuxuu ka hadlaa political association-ka xisbiga wuxuu ka hadlaa mucaaradka wuxuu ka hadlaa aragtida xorta wuxuu ka hadlaa kala duwanaanta aragtida sideedaba qofka xisbi dadka Soomaaliyeed in aad u fahmaan waana aaminsan in wacyigelin siyaasadeed badan laga rabo halkaas ama civic education wax la yiraahdo war qofka mucaaradka shaqadiisa ma aha inuu dowladda wanaageedii waxay qabato sheego dowladda ayadaa isugu filan in ay wanaageedii waxay qabatay ay sheegato ayadaa isugu filan ayadaa propaganda u leh ayadaaba waxay qabatay ka badan oo run ahayn aan wada ma dhigi karo nin weyn ah been ma dhigi karo laakiin aan run ahayn ayadaa meel bala taaganba ayadaa samaysato meel walba iridu bala taagan aniga igama baahna marka inaan dowladda amaano aniga waxaa la iga baahan yahay waajibkayga dastuuriga dastuurka qoran oo yahay dowladda waxay ku qaldantahay wixii dhaliila inaan tusiyo adiga hadda soo labisto hor fadhiso aniga aan ku dhaho labiskaada waa qurxan yahay si fiican u soo labisatay oo intana ay guluusyahaada ay kala jaban yihiin ama suudkaaga oo wasakh ku taalo aan ku camiro wax macna ay ku sameynaysa malaha oo dheed marka fagaarayaasha lagu qoslo laakiin aan ku dhaawro suudkan wasakhaysiin iska soo bedel annaga waajibkeena waxa waaye xukuumadda inaan toosino oo saxno hadday marka hadday dadku rabaan inaan xukuumadda u amaano xukuumaddana waxaa laga rabaa inay dhaliisheeda ayadana sheegto xukuumadda 2 sano 3 sano joogto wax kasta sax may qabatay wax kasta sax may u qabatay qalbada hal dhiiba sax ay admiya in jawaal rida sax ay admiya in dekada la bixi sax ay admiya
in wax kasta inaan lagu soo duulay saxeed miya in madaxweyne isbaaran barko sax dowladda haday tii anaga waxaan ku qaldanay waxaan ku saxsanahay anaga xataa fair noqo war dowladdan meel ku dhiirigeli meel wala dhigi kara laakiin dowlad ayada is amaanaysa oo run waxaan ahayn isku amaanaysa oo dacaayad iyo miidi u furatay oo xataa saxaafadii aamusisay idinka xataa waajibkiina guutiin saxaafadaha dhalish dowladda sheegtaan si saxaafadda loo talgalo wasaas anaga xataa waajib iyo mas'uuliyadda anaga rid leedahay laakiin mucaarad sidiisaba shaqadiisa waxay tahay dhaliisha dowladda inuu hoga tusaale uu saxo dowladdana uu hoga tusaaleeyo waxa ay ku qaldan tahay oo tuso aniga saaki mas'uuliyad iga saaran nin argagixisa oo dowladda ay shir jaar ka qabatay oo 2017 ay qabatay waa baxsado Nairobi ka dagay hadii la yiraahdo inaan dhaho war dowladda ku dhici kartaa inaad ku faanteen inaan ninkii amniyaadka muqdisho hay inaad soo qabateen afagaar la timaadeen saakin leeyahay ninkii Kenya ka dagay say ku dhacday inaan dhahamiya dowladda mis inaan dhaho dowladda ammaanka wax ka qabatay adan ku weydiiyay tan dhaha dowladda ammaanka wax ka qabatay ma leeyahay mis dowladda say ku dhacday ninkaas inuu baxsadaan leeyahay ani mas'uuliyaddeeda waa garanaya shacabka Soomaaliyeed mas'uuliyadooda way garanayaan dowladda raba mas'uuliyaddeeda inay garato waxaan ku dhownaa gabagabadii barnaamijka xiriirlaaliyaha qaranka wuxuu hore u sheegay in raggii saxiixay memorandum of understanding ama heshiiskii isfahamka ee lala galay dowladda Kenya inay ahaayeen geesiyaal qaran ayna mudan yihiin in taalo loo dhiso isagoo ula jeeday in shaqo fiican aad u qabateen qaranka balse su'aashiisa weydiinta madana waxay tahay adigoo geesi qarana ama xukuumadda adigoo geesiyaal qarana in saasoo dhan dadkii loo marin habaabiyo oo dambiilayaal la idinka dhigo maxaa sabab runtii waa wacyi xumo waa fahan xumo mas'uuliyaddeedana qaar anaga nafteen aan leenahay qaarne dadkii markaas siyaasadda aan isku haynay ay lahaayeen oo kaga faa'iideystay runtii waa ku faraxsanahay heelaha saas inuu yiri laakiin inay dadka Soomaaliyeed soo fahmeen ninka Cabdifataaxo waxaaba cadeynaysaa dowladda Kenya hadda waxay la qeylinaysaaba dacwadiha la soo celiyo wada hadal hala galo dowladdeeni iyo maxkamadiina waxay leeyihiin wada hadalkii waa la soo galo waa soo dhamaaday haddaan marka maalinta anaga qaba lahayn oon ku dhegi lahayn oo Kenya dacwada la qabsan lahayn oo aan processka aragti la soo marsiin lahayn oo madaxweynaha anaga naga dambeeyay oo san dacwada bad geey lahayn maxkamadda oo raggan hadda dhameystira laga rabay dhameystiri lahayn waa waxa aan leenahay dowladnimadu nabiga wuxuu yiri inama bu'istu li utammima makarim al-akhlaq waxa la isoo dirow dhahay akhlaaqda teeda wanaagsan inaan dhameystiro ma dhihid in aan bilaabo iyadoo la isdilaayo oo arab jaahili ay tahay oo markaa fiiriso wax walba xun ay jireen haddana inay makarim al-akhlaq jirto sheegay nabiga waxa la yiraahdaa waa hanaanka westernka ku dhaqmaano dowladuhu inay isdhameystiraan iyo maamulada oo maamulkii ka horeeyay waxa uu qabtay aad sheegto annaga laakiin waxa dhacday dadka wacyi badan uma sameeynin looma diyaarinin dadka baarlamaanka xataa lama fahamsiinin Kenya markay ku adduucota xataa ina annaga diidanahay in arinta laga wada hadlo ay ku qasabta xataa dowladda naga dambeysay maxkamad in la tago waxyaalaha hadda ku andacoo rabto dhan hadda waxa ka xiray baabkaas waa annagana xisbi ahaan iyo xisbiyada kale oo ka xasuustay UPD iyo xisbiyo lamida way ku taageereen mowqifka dowladda waxay cadeynaysaa markii inaan dowladda garab taaganahay mowqifkeeda waxay cadeynaysaa in hore uga soo shaqeynay waxay cadeynaysaa dadkii gacanta ku haayay oo xaqiiqada dhabta ama xilaalinta ama qoladii looyarada la shaqeynayso arinta qaabilsaneed cilmi ugu lahayd ay noo qirayaan hal waxaan rabnaa maanta kaliya in waa iska cafinay dadkii aflagaadada iyo dacaayadda iyo been abuurka nagu hay jiray waa iska cafinay sababtoo ma aysan ogeyn laakiin inta og ayagoo xaqiiqadaas og dacaayad iyo aflagaado iyo been abuur nagu sii wadaa aakhiro baan ayagu kala baxayna waana haysanaa waqtiga noo haro aad u yar waxaan rabaa inaad hal mar soo koobto dalka 2021 wuxuu galayaa doorasho sharciga doorashada ma diyaarsana doorashada la galaya xataa nooc ay tahay ma midii hore lagu noqonaya ma qof cod ay noqonaysaa ma qaab ka duwan ay noqonaysaa wali ma kala cadaa maxaa hortaagan in sharciyadaas la dhameystiro oo doorashadii maadaama xukuumadda talada haysa ay hartay hal sano iyo 3 bilood in wax la waxaan isleeyahay waxa hortaagan xukuumaddaana riyo baanbaana ku jirta oo extension ay rabtaa anagana waaba ka dignaba sharciga doorashooyinkeena ku soo dartay sharci doorashooyin waxaa jira wasaaradda arrimaha gudaha ay soo sameysay dad badan lagala tashaday annaga xisbiyadana lagala tashaday usbuuc aan gacanta ku haynay muraajaca aan ku sameynay mulaxadaadkeena aan gudbinay waxaan ka qabnay aragtideena waa la qaaday dhowr bilood ayaa la hayay ilaa 6 bilood oo kala la hayay annaga waxaana loo sheegay in madaxtooyadu soo bedeshay oo hanaankii madaxweynaha loo duurinay la bedelay oo dastuuriga ahayd
qaabkii kale oo doorashada ku dhici lahayd la bedelay laguna soo daray qodob la yidhaahdo hadday doorasho suuroobayso extension hay-adaha dhan loo sameynaya lagu soo daray waa maalintaan ka qeynayna sharcigan dhan waxaa dilay intaasaa dishay waa un malab macnihii lagu dhex riday baranbara camal oo noqday ha laga saaro extensionka dowladda marka waxay rabtaa sharciga in ansixisa ma rabto nidaam xisbiyaa lagu gelaa ayada xisbi ma leh dadka madaxda xisbi male hadda mala xisbi ma samaystaan inkastoo laga sheega wax la yihahdo xooga wadaniyiina abuureen oo 16 degmo xoogayaal xoogay wadaniyiina ka jira la yihahdo oo madaxtooyada ku xiran saas ay ka rabto inay ku qabsan karaan sidii kaadirkii xisbiga anti wadaaga ama dhaqan noocaasa la ii sheegay laakiin dowladdan sharcina ansixi mayso xisbina ma samaysanayso madaxweynuhu kale qaramadooda maqlahay October maaja la sameynaya voter registration laba bilood lagu sameynaya taariikhda adduunka meel voter registration Soomaaliya hadda inta la xasuusta ka dhacday 60kii kadib doorasho waa Soomaaliland 10 sano ay ku qaadatay ninka dhahay laba bilood ku sameynaya mucjisad waxa inuu sameey karin waa la ogyahay war waxaan ka leenahay guddiga madaxa banaan ee doorashooyinka xafiisyada jiingadaha ee UN-ka u dhisay 5 sano ka hor ee madaxtooyada ku dhex yaalo ha laga soo raro building xaafadaha la siiyo oo lacagahan leeyahay safaaradahan ku gadanay adduunka ku gadanay war guddigeedii doorashada meel degala oo qalab hal la siiyo lama hayo lama sameynayo haddaan gud doorasho wax laga qabanayn oo sharci wax laga qabanayn oo wax oo xisbi la sameysanayn oo doorasho loo soconin hal waxa rabaa markii la yiraahdo xilligii waa dhamaaday doorasho lagama qaban karo extension hal la sameeyo laakiin anagana mid aan u sheegaynaa madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo February 2021 oo mandate ku ogyahay maalintaas wixii ka dambeeyay aniga oo Cabdiraxmaan Afshakuuri asaga magaalada u simanay qof kasto asaga siyaasad ku haystaan isaga magaalada u siman yihiin haddii aan heshiis laga gaarin qaabka doorashada marka anaga way noocadahay doorasho qof iyo cod meeshan kama soo socoto doorashadii hore oo hanaankeedii wax laga bedelay oo wax lagu kordhiyay in laga wada shaqeeyo oo la wada qabto kaliya hadda xalku uu yahay extension iyo muddo kororsin xal ma aha dadkan waxaan jirin lagu dhalanteed gareeyo maalin kasta been loo sheegana xal ma aha ayadoon tilaab la qaadaynin waxaa xal ah in taladaas doorashada ah waana ka shaqeynaynaa annaga iyo xisbiyada kale iyo maamul goboleed intii nagu leeyahay inaan keenno halnaan doorasho dalka looga bixiyo ismarwaaga siyaasadeed ee ku soo socda hadeertaan wax looga bixinaa inaan keennana waa taladeeda ku jirno dowladda federaalka ee Soomaaliya waxay soo gabagabaysay shirkii dib u heshiisiinta oo galmudug waxaana loo gudbayaa wajigii labaad oo doorashadii wixii xeerarka iyo habraaca ay soo saartay sidee waragtaa aan horaan u sheegay dowladda waxaan ka rabnaa galmudug maamul goboleed jiro oo muddadiisa dhamaysto waay ka hortin asla fahanna waay ma hadda lama dhisayo galmudug maamul goboleed hore u jiray waxaa la isku haystay muddadii sharciga ahayd ee madaxweyne xaaf ma dhamaatay mise ma dhamaanin asagana wuxuu ku doodayay anigii ahlu sunna heshiis galnay dastuur cusub aan samaysanay muddadeenii dastuurkaas cusub aa xadidaya iyo ahayd arrinta oo la isku haystay iyo ma aha ahlu sunnadii waxaa la kala furaysaan ognahay madaxweyne xaaf ahlu sunnada lagu qancina waqtigii dhammaad doorasho la qabto soo ma aha dowlad goboleedkii waa jiraa marka guddiga waxaa magacaabaya doorashada madaxweynaha ama ra-iiska xukuumadda doorashada asaa qabanaya dowladda federaalka mandate wuxuu u sii dibashiinta uu qabto okay waaba dhacay dibashiintii seminaarka eedo dhowrka beri ahayd dibashiinna maahan seminaar aan iska dhigi karnaa waaba ku tufnayba okay laakiin hanaanka doorashada ku dhacayso waa in looga dambeeyaa hanaanka xukunka galmudug ee jira hadeertaan mandate-kiisa dhamaanin suuragalma inaad dhahdo madaxweyne xaaf waa jiraa oo haddii shir la qabanaya international waa ilataga oo haddaan mid dibashiin tagayna asaa ilatagaya madaxweynihii galmudug waayo awoodna uma ogoli asagana waxaan leenahay war dadka reer galmudug si kastoo uga tabanaysid wax kastoo lagugu sameeyey madaxweyne inaad karaamadaada iyo sharaftaada u soo celiso ood maamul lagaa dhaxlay oo madaxweyne kale xil ah ku wareejiso mas-uuliyadda ku saaran waay saas daraaddeed aan rabnaa doorashada inuu asaga magacaabo guddiga maadaama hadda uu tartanka ku jirinne waaba sii qurxinaysaaba wuxuu heli karaa inuu guddi madax bannaan soo ii sheegay aniga asna sheegay tartan kuma jiro yiri guddi madax bannaanoo doorasho inuu sameeyo hanaanka doorashada asaga inuu supervise gareeyo dowladdan ay la socoto waa la rabaa laakiin dowladda iyadaa leh musharax aan ognayn dadka dhan og yihiin inay dadkii ku fardiso guddiga iyo magacaabista iyo anaa qabsanay anaa yeelayane suuragal ma aha saas daraaddeed hanaanka horta ha looga dambeeyo maamulka galmudug ee hadda jira ee mandate-kiisa dhammaaday si uu kale ugu wareejiyo dowladdana hadday tartamayso u ogolnahay ha tartanto musharax inay keensato waa u ogolnahay ha keensato inay taageertay lacag ku bixiso ha ku bixiso ayada u taala garab ha istaagto laakiin dadka uma dhici karto umana xoogi karto
sideedana meeshaas meel isku dhaco isku xooga maaha siyaasi ahaan ma qabtaa in xukuumadda shaqo fiican ay ka qabatay inay isku keento beelihii galmudug iyo weliba garabyadii galmudug ay sahay sida ahlu sunna galmudug cadaado meelo badan oo marka horeba isdiidanaa in hal magaalo inta la isugu keeno ay wada hadlaan cadaado way qaylisay odayaasheedii way qaylinayaan cadaado wanaagsan miis kula muuqan cadaado odayaasheedii way qaylinayaan oo waxay leeyihiin meesha anaga nala kama talagelin dada xamar laga keenay dib u heshiisiintii la sameeyey dadkii la isku keenay xogtii laga soo qaaday waxay isku haysteen ma la xaliyey mise inta usbuuc meel lagu jiraa la yimaado la tarkeeda waqti hadda adig fiiri isku imaasho anaga hadda interview iga qaado oo gubto oo telefishinka ka sii deeweyso oo dadkiina ay arki waayaan maxaa macnaha leeyahay cabdiraxmaan u tagay interview ka soo qaaday ma dhihi kartaa annaga waxaan u baahanahay in la helo natiijadii aaway dadku waxay kala tabteen iyo sida loo xaliyey iyo qolada deegaankaas ka timi waxay tabatay soo ma tabashadii see loo xaliyey waxaa la yiri waxaa loo rafcinayaa dowladda ayadaa xal ka gaaraysa wasalaamu calaykum marka waa workshop hana la yahay workshop ku magacaawno laakiin annaga ma arag qabiiladii waxay sheegteen oo la xaliyey qaaraa baarlamaanka nambarkiisa ka qaba wax qaaraa sida gamul wax ka qaba qaaraa madaxtinimada wax ka qaba qaaraa qabiilo isdilay wax ka sheeganaya hor u dhacay qaaraa in lagu abuse gareeyo maamuladii hore sheeganaya waxa la xaliyey hadiina loo sheego la yidhaha saanaa loo xaliyey waa okay wax dhibaataa kama qabno laakiin annaga shaqaan bilownay hal amaan ayadoo natiijadii la arag waxaan sugaynaa natiijada meesha ay ku dhamaataan sugaynaa waxaan uga digayaa marka dowladda galmudug ma cusba ee mashaqo lagu hala gelinina haddaan dhahdaan dibaan u furaynaa galmudug sidii loo dhisi lahaa haddaan aan bilaabaynaa ogow dhismihiina waa lasoo bilaabayaa qabiil walbana tabashadiisa iyo damaciisana meesha la imaan doonaa galmudug maamulay leedahay mandatesaa dhamaaday shaqada asaga ha loo daayo dowladdana koraa kala socoto dabcan musharaxa ay wadato ama kuwa la ordaysana ha keensato dhib kuma qabno meeshaas annaga xisbi wada jiraana la yihahdaa inaan ku tartanno oo musharaxaan leenahay oo halkaas ka tartamaan rabnaa UPD xisbi la yihahda musharax inay ku tartamaan rabaan dowladda musharax loo la ogyahay waan qarsan inay ku tartantay rabtaa kuwa madax banaana jiro raba inay tartamaan intaba inaan tartanaan rabnaa si oo fair ah oo xalaal aan ku tartano ugu dambeynta barnaamijka intii siyaasadda aad ku jirtay ma jirtaa arrin aad ka qoomamaynayso aslada haddii allo ya shalay maanta ka dhigo wax badan aan sixi lahay taas waxaa la yeelaa markii siyaasadda laga ritaar gareeyaa la sheega hadda maaha weli siyaasadda ku dhex jira daawada inta kusoo gabagabaynaynaa barnaamijkii gaarka aan ku wareysanaynay hogaamiyaha xisbiga wadajir cabdiraxmaan cabdishakuur warsame barnaamijku waxaa idiin soo saaray